naagtan labadeeda wiil ayay si la yaab leh u dishay. aan ka dabageeyay dhacdadeeda. Wallaahi dhacdadan dhacdo ka xanuun badan weligay ma arkin. naagtan waxaa la yidhahdaa Susan. waxay isqabaan ninkan oo markaa la yidhahda David. waxay iska dhaleen 2 wiil. naagtan markaa kuma ekaanin ninkeeda keliya, niman badan ayay la saaxatay oo uu markaa ka mid yahay nin la yidhaahdo oo markaa shaqo wadaag ay ahaayeen oo la yidhaahdo Tom Finley. nin la yidhaahdo ayay markaa la saaxatay iyadoo markaa uu David qabo. marka David hataa marar badan ayuu ku arkay iyadoo la hadlaysa. markaas ayuu telefoon inuu ka qaaday ayuu ku yiri mar dambe hada soo cadid ani adiga waxaan kala leena. ayadiyo Tom marka hawsha ay wadeen waa istaajiyeen maadaama lagu fahmay. marka muddo yar kadib David iyo ayadu waa isgafeen maadaama ay naagta isla wareegtaa ahayd. waa isgafeen kadib waa iska furi. ilmaheedana ayada markaa looga tagay oo haysatay. marka markii uu saan u furay waxay buu aragtay chance waa orday Tom Finley kii aan sheegay hadda iyadoo la qabo la saaxanay kaasi ay wacday hawsha meeshii kasii wateen. kadib maalin maalmaha ka mid ah Tom Finley wuxuu ugu yeeray meel markaa baati ah ayuu ugu yeeray si ay markaa baatigaas ay waqti ugu qaataan. laakiin wax yar marka la joogay Tom Finley wuxuu la qabsaday naag kale oo markaa yarashidan uu arkay tii uu markaa iskala qabsaday uu la dhaansi garaynaya markaa iska qabsanay. ayadana waa hinaastay waa baxday nin kale ayadan la qabsatay. bis way kasoo tageen meeshii maalinkii baatigu u dhammaaday. maalinkii labaad markii la maray ayuu markaa usoo diray fariin ah. marka fariin qoraal ah ayuu usoo diray uu markaa leeyahay qaabkeed u dhaqmaysay markaan baatiga joogni ma jeclaysanin oo dad kale markaa iskala qabsanaysay. marka midada kalena waan ku jeclaan lahaa markaa xiriirkeena oo sii socon lahaa laakiin caruur ayaad leedahay ayuu iska soo gooyey Tom Finley. marka xiriirkeenana ma sii jiri kara sida darteed ayadu marka way ka hanaaqday maadaama ay saaid u jecleed Tom. way soo tagtay meeshii markaa iskala shaqaynayeen ay ugu timid si ay markaa ay u barbarido. marka waa ooysay waxyaabo badan ay subisay laakiin wuu ka diiday. ugu dambeyn waxay istiri ama wax walba hadday u sheegtid oo soo suubisay ama daacad waa uu isdhahday. marka waxay u sheegtay inay markaa la saaxatay ninkii adeerkeed ahaa markaa uu hooyadeed qabay ay la soo saaxatay dadka hor ilaa ninkan Tom ay dhahay Tom Finley ay leeyahay aabihiis inay la saaxatay taa u sheegtay. waxyaabo badan ay qiratay. marka ninkii waa yaabay waxaas kulli lama soconin. arrimihii markay ka dabageeyeysay kadib wuxuu yidhi ani hawshaada kuma jiro. marka asaga waaba hadda ay howlahaada dham iga soo xir sideeda waxaas dhan ma ujeedo. waxa uga cad inay soo ceshato Tom. marka waxay la timid maalinkaas habeenkeedii waxay la timid qorshe ah maadaama uu Tom markaa qoraalkii uu soo qoray ay ku jirtay waa ku jeclaan lahaa laakiin caruur ayaad leedahay sidaa darteedna marka xiriirkeena ma sii jiri karo. maadaama uu usoo qoray waxay go'aansatay inay caruurteeda markaa nolosheeda ka saarto. bis ilmihii waa orday habeenkii waxay siisay biisi waxbay siisay waa ku daldashay. kadib gaarigeeday saartay kursiga dambe ay markaa fadhiisiisay ilmihii dhag waa waday gaari meel markaa biyo ay la fadhiyaan oo mar ah markaa meel biyo badan ay la fadhiyaan oo markaa meeshii ay iyaga deganaayeen u dhow wax yar u jirta ayay markaa soo aaday. bis waxay keentay gaarigii meel u dhow biyaha agtooday keentay way istaajisay muraayadahay u dilacday. ilmihiina marka gadaal dambe kursiga dambe markaa fadhiyaan waxaana u xiran beel tagay ku dhegan oo marka saaid loogu dhuujiyey u xiran muraayadii ay dilacday wax walba subisay. gaarigii marka meel degaandig ay istaajisay oo markaa oo biyaha uu ka geli kara si uu u garaangira. marka waxay subisay muraayadahay u dilacday wax walba u subisay hal maray neutral ay geysay si uu gaariga u tararaxa iriday u xirtay qab. gaarigii si uu socday biyuu dhex galay meel dhaxbartinkuu tagay. gaarigii 6 daqiiqo kadib gaarigii hoos ayuu maray markaa gunta hoos ayuu tagay. ayadana markay aragtay gaarigii inuu qarsoomay oo markaa la arkaynin ilmihiina ku dhex jiraan ogaada taas inay kursiga markaa beel tagay inay ku xirtay ee ku dhuujisay markaa ku dhex jiraan inay dishay rabtaa usoo balangareysay. bis markuu gaarigii qarqay oo hoos maray waa baxday waddo u dhow markaa oo laamiga ah oo traffic light leh ayay tagtay. kadib xaafad ku dhow meeshaasi ay tagtay way qaraacday. booliiska la wacay booliiska la wacay. kadib
waxay u sheegtay booliiska in nin markaa madow ah uu bastoolad madaxa ugu qabtay, sidaa darteedna uu caruurteedii uu gaarigeeda fuulo, sidaas uu kula cararay oo markaa gaarigeeda laga dhacay. booliisku baaritaanay galeen oo daba galay gaarigeeda, ninkii noo sheeg siduu u eg yahay, waxyaabaa la weydiiyey, gaari nambabaleedka wixii kulli la weydiiyey. arrintii hataa waxay gaartay news mediagay gaartay, dadka kulli dunida dhan waa wada hadal hayaan. marka maamadii waxaa la leeyahay maamada ilmeheedii laga qaatay iyadoo gaarigeeda saariin laga qaatay, marka dadka kulli marka ugu cabsanahayan waxay leeyihiin ilaahay usoo sahlo. su-aala la weydiiyey marka ninkan markuu bastoolad kugu qabanaya xaggee joogtay alleh, gaarigana xagguu yaal. waxay tiri marka traffic aan taagnaay, red ayuu ahaa traffic, sidaa darteed anigoo traffic taagan ayuu bastooladii u qabtay, gaari kasoo baxay ugu dhahay iyo caruurtii fuulaan ula carar. marka waxaa lais weydiiyey waxaa lahay laynka kale gawaari miyaa maraysa, habeenaa la jooga ogaadaya, laynka kale gawaari miyaa maraysa, maya ayay tiri. marka booliista su-aalahaas isma keenayan, red ayuu ahaa iyo laynka kalena gawaari ma maraynin, isma keenays, waayo red ma noqdo markii gawaari dhanka kale ay maraynin. marka wixii la weydiiyey kulli jawaabihii ay bixisay kulli waa laga shakiyey. waxay qaadatay muddo baaritaamo badanaa la suubiyey, su-aalo badanaa la weydiiyey, waxyaaba badanaa isdaba marisay. 9 maalin marka la maraayo, maalinta 9aad aa loo yiri haddana su-aalaa la weydiiyey, waxyaabaa lagala hortagay oo markaa hadalleedii maadaama ay isdaba marsanayaan. marka dambe waxay ogaatay inay la ogaan rabo marka xaalkeeda loo yaabo. markaa kadib marka ugu dambeyn waa qiratay, waxay tiri caruurteydana noloshii dhaafiyey, meesayna markaa gaariganaan saaray aan neutral u gey gaariga, biyaha ayuuna ku qarqay, markaa hoos ayuu maray. kadib ilmiyaa lasoo bixiyey, meyd waabaa dhinteen. marka ugu dambeyn falka markuu ku caddaaday cimri xarig ayaa laga dhigay. marka dhacdadan halkaasay ku eg tahay, walaahi dhacdo xanuun badan ay ahayd. marka kheyr aan rajeynaya dhacdiyoonku ugu yaabka badan dunida oona ugu xanuunka badan aan soo gudbiyaa. marka insha allah muuqaalka like saara, marka channelkan subscribe saara insha allah, gambaleelkana furto marka si ay kusoo gaaraan muuqaala dhacdiyoonkan soo gudbino. marka dhacdiyoon badan aan ku jiro channelka soo daawada insha allah. marka kheyr ayaan rajeynayaa.